السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka kan isaga ah oo aan ku falanqeyn doono xaaladda gobolada waqooyi bari ama Puntland ama maamulka Puntland iyo xaaladda Khaatumo oo run ahaantii la oran karo inay yihiin arrimo ama xaalado isku lifaaqsan. saan ogsoonahay waa tii dhowaan isimada maamulka Puntland ay soo saareen iyagoo tiradoodu dhan tahay 30 isim oo ay macnihii qirteen jiritaanka maamulka Khaatumo. arrintaasuna ahayd run ahaantii arrin aad loogu riyaaqo looguna diirsaday, iyagoo diiday in xubnihii 17 ahaa baarlamaanka Puntland beesha dhulbahantee asaaskii iyo dhisidii maamulka Khaatumo ka hor uga tirsanaan jiray maamulka Puntland inaan lagu darin doorashada maamulka Puntland ee soo socotaa 8 bisha Janaayo 2024. go-aankaasoo saan tilmaamay lagu tilmaami karo mid ahaa go-aan gobonnimo oo majaraha siyaasadeed iyo dhaqan iyo bulshaba u saxay maamulka Puntland, balse nasiib darro aan ilaa haddeertadaas maantadaas laga hayn siyaasiyiinta maamulka Puntland, hadday noqdaan kuwa doorashada madaxtooyada u tartamaya iyo hadday noqdaanba kuwa kale oo maamulka ka tirsan ama taageersan kasoo jeeda, inaanay qirsaneen ilaa iyo haddeertadaas jiritaanka maamulka Khaatumo. arrinkaasuna yahay arrin laga xumaado, salkana ku haya damaaci siyaasadeed iyo ku tarafalka bulshada reer Khaatumo gaar ahaan dhulbahante, uuna yahay run ahaantii arrinkaas iyo aragtidaasu mid aan marnaba loo dulqaadan karin, mar hadday ku saabsan tahay arrin salka ku haya jiritaanka Khaatumo iyo bulshada Khaatumo iyo maamulkoodaba. waxaa cad iyaduna oo aan caad lahayn in loo gacan haadinayo reer Khaatumo oo la rabo inay qayb ka noqdaan loolanka siyaasadeed ee ka taagan magaalada Garowe iyo maamulkaas isaga ee ku magacaaban Puntland, balse loo baahan yahay xaalad feejinaan ah iyo ildheeri. aan loo baahnayn in bulshada Khaatumo ay ku mulmato maamulka Puntland iyadoo ugu dambeyn aayaheeda siyaasadeed iyo bulsho iyo dhaqanba ka tashatay oo maanta matalaageeda sharciga uu yahay maamulka Khaatumo, ayna arrintu tahay xaajaduna taagan tahay reer Garowe iyo Puntland intay ka koobnaatoba ha ka koobnaatee in maanta kubaddu garoonkooda taallo loogana baahan yahay qaabkii ciyaartoodaas iyada ah u dhammaysan lahaayeen, balse iyadoo aanay ku lifaaqneyn wax waxyeelo ah iyo xadgudub ah oo ku jeeda bulshada Khaatumo. gacan haadka siyaasadeed ee loo gacan haadinayo bulshada reer Khaatumo oo waa mid meelo kala duwan geli kara, dhanka loolanka siyaasadeed ee ka dhaxeeya siyaasiyiinta maamulka Puntland
laysku dayana lafteeda in xoogag ciidan ama maleeshiyaad kasoo jeeda deegaamada khaatumo in loolanka dhex mari karaa hubaysan iyo siyaasadeed ee dhex mari karaa siyaasiyiinta puntland oo qarka u saaran run ahaantii marka la akhristo qaab dhaqankooda siyaasadeed qarka u saaran dagaal sokeeye loogana baahan yahay beesha dhulbahantee in arrinkaas isaga ah ka dugtoonaadaan usaan tilmaamay aanay ku milmin dadka qaarkiis maamulka puntland iyadoo taasu ay keenayso dhaawacyo iyo dhibaatooyin mug leh oo kala duwan oo ay ka mid tahay in ciidanka beelaha harti ee kaga jira difaaca aagga maamulka khaatumo halkaas iyada ah isku dhac u dhex maro ciidanka khaatumo ama uu halkaas ka bilaabmo xaalad godood ah iyadoo lagu dirayo bulshada deegaamadaas iyo maamulkooda oo ah khaatumo yacnihii maleeshiyaadkaas iyo xoogagaas usoo gurmaday dadka reer laascaanood iyo khaatumo oo loo muujiyo in reer khaatumo ay ku dambeeyeen noqdeen dadyow ka qayb galay waxyeello u geystay puntland oo gacan saar la leh qaar ka mid ah qaybaha siyaasadeed ee ku loolamaya magaalada garowe arrinkaas isaga ana dadyowga run ahaantii jecel inuu muuqaalkaas iyo qaabkaas isaga u noqdo u dhaco ama uu qabsoomo waxaa ugu horeeya xildhibaanadaas 17 ee kasoo jeedi jiray beesha dhulbahantee maamulka puntland kasoo jeedi jiray kana tirsanaa iyo siyaasiyiinta laftooda madax ka noqday maamulkaas isaga ee garowe ee kasoo jeedaa beesha dhulbahante oo weli qaarkood ku adkaysanayaan ka mid noqoshada maamulkaas isaga ah dhammaan xoogagaas iyo dhinacyadaasu waa kuwa jecel in sinaariyugu iyo muuqaalka siyaasadeed ee dhaqan inuu qaabkaas isaga ah ku dambeeyo qaab fitnadeed oo aan la kala saarin dadka ka tirsan maamulka khaatumo deegaamada maamulka khaatumo iyo dadka puntland ka tirsan maantana marka laga yimaado arrinka dhaqan iyo dhiig iyo dhalasho iyo ka sokow iskaashi siyaasadeed dhaqan dhaqaale bulsho ee dhex mara labada maamul puntland iyo khaatumo balse labada jiritaan ee labada maamul kan khaatumo iyo kan puntland ay yihiin laba jiritaan loo baahan yahay in garashadu garato inay yihiin laba jiritaan oo kala madax bannaan oo aan marnaba isku lifaaqnayn oo isku milmi karin ma dhici karto in la yiraahdo bulshada khaatumo waa bulsho ka tirsan maamulka puntland sidoo kalena la yiraahdo bulshada ka tirsan maamulka puntland waxay ka tirsan tahay iyaduna sidoo kale maamulka khaatumo qofku iyo dadku kama tirsanaadaan laba maamul laba dowladood waa taageeri karaan qaabkay u taageeraanba ha laysu taageere ama wax laysku jeclaysto balse dhanka markay noqoto jiritaanka arrinka jiritaanku mid gala run ahaantii wadar maaha waa arrin ku kooban waaxid
aragtidaas iyada ah iyo arrinkaas isaga ah waxaa lama huraan ah in la ogaado inuu qaabkaas isaga ah u dhisan yahay, qaabkaas isaga ah u hirgalo, qaab aan kaas ahayn aan u dhici karin. daawada dhegayste, waa anigoo ah Khaalid Xasan Yuusuf. ilaa intaan ku kulmi doono barnaamij kale oo kan la mid ah, iga guddooma salaanta islaamka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.